waxaa garoonka Cabdalla Stadium ee magaalada Berbera nagula sugan Mustafa Aadan Muuse madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda isgaarsiinta ee Telesom oo runtii iyaduna maanta halkan kaalin weyn ka qaadatay oo keentay adeega 5G oo markii ugu horeysay horyaalada Soomaaliland oo ka qabsamaya magaalada Berbera markii labaad si toos ah lagu baahin doono 30 maalmood ee fooda lagu soo hayay Mustafa idinku shirkad ahaan fariinta halkan marinaysan maanta maadaama magaalada Berbera ku sugan tahay oo ciyaarta kubadda bilaamayso maxay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadleh labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha gobolka Saaxil gaar ahaan caasimadda Berbera sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa telefishinka qaranka iyo guud ahaan marti sharafta garoonka ku sugan waxaan anagu shirkad ahaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan adeega qaaliga ah ee xawaarihiisu sareeyo 5G aanu markii ugu horeysay ku tijaabinayno ciyaaraha live-ka waxaana nasiib u helay Berbera gaar ahaan tartanka horyaalada ama Champions League oo ay telefishinka qaranka iyo dhammaan telefishinada kale astaan ay ka mid tahay oo ay isticmaali doonaan internetkayga insha Allah dadweynaha waxaan u rajaynaynaa inay sawir qurux badan ay heli doonaan sababtoo ah technology-ga oo isticmaalno ama internetka oo isticmaalno waa internet xawaarihiisu aad u sareeyo adeegan dhawaan baa ay ahayd markii daafurtay durtoomii soo gaaray gobolada dalka oo iyadana waa ka daafurtay aad bad maasan tahay 13 degmo ama maxay 13 degmo gobol ayuu ka shaqeeyaa adeegani waliba gaar ahaan si gaar ah magaalooyinka waaweyn Hargeysa Berbera Burco muxuu ahaayay ilaa dhammaan gobolada bariga uu ka shaqeeyaa waxaan isku daynay intaana sii deyn inaan horta marka hore ka qabtirno deegaanada oo dhan sababtaa waxaan wareegnimo u haysanaa in markastoo adeeg hirgelino meelaha ugu baahida badan leeyihiin meelaha fogfog ee caasimadaha fog marka tan waxaan ku dadaalnay in dhammaan gobolada oo dhan uu ka hirgalo waxaan kaloo ku darayaa muxtaarow muxuu ahaayay tartankan kaliya maana internet keenin waxaan ku caawinay dhammaan waxyaabihii ay wasaaradda ciyaaruhu u baahnayd iyo xiriirkuba garoonkaanu ka caawinay dhiskiisa iyo dib habeyntiisa waxaa kaloo ka caawin doonaa insha Allah xafladda xiritaanka iyo guud ahaan muddada bisha uu socdo muxuu ahaayay si gaar ah iyo si dhow baan ula shaqeyn doonaa insha Allah wasaaradda iyo xiriirkuba Mustafa kulli dadku waxay isweydiinayaan in halkan naga dhigeysanayaan garanay internet 4G plus iyo 5G ay ku kala duwan dadka markaan soo koobo kelima iyo arrimaha technical kaliya waxay ku kala duwan yihiin marka soo duubo waa xagga xawaaraha iyo xagga quality-ga iyo xagga muuqaalka ama sawirka oo 5G-gu waa ficil u dambeeyay dalkeena soo gaara hadda 6G baa la hadalhayaa laakiin inaga iyo guud ahaan dalalkan Afrika waxay ku jiraan dalalka ugu horeeyay 5G laga hirgeliyo dadka tijaabin doona waa sawirka iyo xawaaraha speedka ay ku kala duwan yihiin fariinta ugu dambeysay aad halkan marinayso bulshada Soomaaliland in dhawaanaysan fariinta ugu dambeysay halkan marinay waxa weeye ciyaaruhu saan ka warqabno kaalin weyn ka jiraan horumarka bulshada si gaar ah caafimaadka isdhexgalka marka fariintan marinay waxa weeye si nabadgelyo ah ay nagu dhacaan dhammaan ciyaartooyga inay akhlaaqda iyo ilaaliyaan oo ay kala dambeynta si akhlaaqda loo ciyaaro dadka daawanayaana inay nabadgelyo ilaaliyaan ciidanka la shaqeeyo wasaaradda la shaqeeyo in aad iyo aad u baahan yahay Mustafa Aadan Muuse oo kamid ah madaxda sare ee shirkadda Telesom gaar ahaan xafiiska suuqgeynta xiriirka dadweynaha aan raahdo oo ku sugan garoonka Cabdalla Stadium oo saacadaha soo socda ama daqiiqadaha soo socda aan raahday ay ka bilaabi doonto ciyaarta koowaad oo dhex marta iyo kooxda dowladda hoose